السلام عليكم 14 bilyan oo sano ka hor adduunka oo dhan wax walba wuxuu ahaa wax aad uga sii yar habadgelaya ma ayna jirin wax ir la dhaho iyo wax dhul la dhaho toona geedaha iyo buuraha warkooda badaa waxaase jirtay hal dhabi oo aad ajiib u ahayd aadna u kululay taas oo bilow waxayd samaysanka nolosha tan asriga iyo midii qadiimka ahaydba waxa gudaheeda ku jirtay dhibicdaas dhammaan qawaa'idda nolosha ee maanta dunida ku kala socoto sida qawaa'idda physics-ka chemistry-ga iyo biology-ga cilmiga saynisku hog badan kama uu hayo idaasi sidii ay ku samaysantay iyo halkii ay ka timid iyo wixii ka horeeyayba waxayse ulimadu sheegeen dhibidaasi nolosha aasaaska u ahayd kuleelkeeda shay la barbardhigi karo inuusan maanta dunida oolin ama aanu ebid soo marin waa dhibida iyo aragtida qarahi weyna the big bang dhibidaas aadka u kululeyd markay hajin weyday hajmigii kuleelka ahaa ee gudaheeda ku jiray ayaa waxaa dhacay qarax dadka maanta nooli marka ay maqlaan waxa dhacay qarax waxa ay sawiranayaan qarax la mid ah midka nuclear-ka oo kale laakiin qaraxa ka dhashay dhibicda big bang waa qarax aad u yar oo atomic level ah xilligii uu qaraxni dhacay maadaama ay ahayd xilligii ay dunida abuurmaysay koonka oo dhami waxa uu ka yaraa 2 sentimitir sidaa darteed qaraxa big bang waxa uu ka dhacay masaafo aan ka badnayn 1 sentimitir xilligaas uu qaraxu dhacay tamartii ku keedsaneed waxay u fiday si xad dhaaf ah xilliga ay fiisikyahanadu u yaqaanaan inflation time qaraxaas yar ee dhibicda ka bilowday kadib koonka waxa u fiday si aan aadi ahayn yacni si xawaare sare ah kadib fiditaanka waxa dibadda u soo baxay 4 qaacido ee aasaaska u ah nolosha kuwaas oo kala ah gravitational force electromagnetic nuclear power iyo awoodda daciifka ah ee nuclear-ka wax walba waxay ku dhaceen muddo ilbiriqsi gudaheeda ah oo aan la qiyaasi karin ilbiriqsigii ugu horeeyay waxa samaysmay hydrogen-ka xilligaas koonka oo idil hajmi ahaan waxa uu ka yaraa hal xabo oo tufaax ah intaas kadib koonku waxa uu ka bilaabmay inuu si tartiib ah u qaboobo kadibna waxa samaysmay meerayaasha iyo hidigaha xilligaas aan ka hadlayno wax noole la dhaha dunida kama jirin waxa laga yaabaa in dadka qaar ay yiraahdaan sidee lagu ogaaday in dhulku uu ka bilaabmay dhibic yar maadaama aysan idba dunida joogin haddaba si aan weydiintaas iyo kuwa la mid ah aan uga qanacno waxa jirta weydiin aadi ah oo dadka iskaga abuuray taasi oo ah in qofku u maleeyo in dhulku uu leeyahay meel uu ku dhamaado iyo in sidoo kale ay irku iyo dhulku meel iskaga dhagan yihiin weydiintaas waxay sababtay in ibni'aadanku baaraan sidee ayay noloshu ku bilaabatay kadibna ilmi baariyaashii waxay u soo baxday aragtidan qaraxa ah aragtidan markaan ka eegno dhanka quraanku waxa uu leeyahay gaaladu miyayna arkayn in irku iyo dhulku waagii hore hal meel wada ahaayeen kadibna aynu kala qaadnay aayadan quraanka ahi waxa ay meesha ka saartay fikrado ay mulxidiintu aaminsanaayeen oo oranayay in adduunku uu weligii jiri jiray uusan lahayn bilow uu ku bilaabmay iyo dhamaad uu ku dhamaado ba gaaladu waxay aaminsan yihiin inay iyagu ogaadeen in adduunku uu ka bilaabmay dhibic yar oo atom ah laakiin waxa hadalkooda meesha ka saaray aayadaha quraanka ah ee uu alla weyne ku cadeynayo sidii ay nolosha dhulka irka iyo wax walba ay ku bilaawdeen waxa kale oo ay adeen weyn u tahay habka iyo xanaanka ay isla jaan qaadayaan sayniska asriga iyo quraanka rabbi haddaba sidee ayay saynisyahanadu ku heleen aragtida qaraxa weyn 1965 ilmi baariyaasha Arno Benses iyo Robert Wilson ayaa waxay si lama filaan ah u heleen shucaac waxay u bixiyeen shucaac asalka adduunka uma uusan muuqan ilaa uu ka soo butaacay shucaacu balse waxay arkeen inuu yahay mid ku faafayo hawada sare durbadiiba waxa la ogaaday shucaaca labadii saynisyahan ay heleen inuu yahay dayoonka qaraxa labadiinina hal abuurkoodii waxa lagu siiyay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Prize 1989 hay'adda NASA ayaa hawada sare u dirtay dayax-gacmeed si uu soo saxmiyo shucaaca asal ahaan uu caalamku ku yimid daqiiqado 8 ayaa ku qaadatay qaybta dareento oo hagaajiso heerka shucaaca ee ay ka warameen Arno Benses iyo Robert Wilson sidoo kale dayax-gacmeedkii wuxuu soo helay haraadiga qaraxii weynaa ee uu adduunka ka bilowday qaraxaas ka hor waxay ahayd xaalad aanig waxba jirin kaliya waxa jiray jiraha iyo joogaha hooga badan waa macbuudka ah ee keligii xaq lagu aabudo alla weynuhu quraankiisu ku leeyahay samada waxaanu ku dhisnay gacmahayga anaga ayaana sii fidinayna suurada daariyada 47